maanta oo taariikhdu tahay 11 bisha May waxaan ka baxaynaa magaalada Garowe waxaa soo gabagaboobay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali baa la yahay waa la isu tagi doonaa midha waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka haba yaraatee wax jixin-jixa ama garowsho ah oo wax alaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunnahay intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaallin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado meesha waxaa ka socda wada tashi la'aan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka muqdisho oo dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhan u yaal dadka reer muqdishona gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la'aan noqoto ama aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha marka arrinta intaasi waa intii kalena qoraal bay ku baxday waad akhrisan doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa degdegsannahay ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'ayaa in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqliga la isu geeyo ayaa loo baahanya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xamar baa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaalahay ka qaataan cashuur maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xamar weynay ku yaalleen aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaana loo baahaya arrinta inay ka dhiidhiyaan